Waxaa maanta oo Sabti ah taariikhduna ku beegan tahay 6da bisha Juun 2020 dib u helay xorriyadiisii wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland looga arrimiyo. Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa muddo sanad ka badan u xirnaa xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana sii deyntiisa qayb weyn ka qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaana axsaabta iyo waxgaradka siyaasadeed ee ka dhisan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba deegaanada Somaliland. Xariga Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa waayadii dambe la kulmayay dhaleecayn xooggan, iyadoo bahda warbaahintuna ay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha maamulka Somaliland aad uga dalbanayeen inuu xorriyadiisa siiyo, waxaana soconayay oraah iyo hadallo kala duwan oo ka soo baxaya dadkii taagta darnaa ee uu caawin jiray islamarkaana gargaarka iyo samafalka u fidin jiray, kuwaas oo dhammaantoodba looga codsanayay dowladda madaxweyne Muuse Biixi inay xorriyadiisa dib u siiso. Maamulka Somaliland ayaa horey xukun ugu riday wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ahaa samafale u gargaaro dadka tabaalaysan iyo kuwa taagta daran, waxayna ururada xuquuqda aadanuhu si weyn u dhaleeceeyeen Somalilandna ku cambaareeyeen xariga wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon. Balse sii deynta Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa maanta heshay soo dhoweyn dhinacyo badan ka imaanaysay, haba ugu horeeyaan hay-adaha xuquuqda aadanaha oo uga digay maamulka Somaliland in mar kale wariye xabsi loo dhigo bila sabab.